isbeddelka bilaabanaya guddoomiyaasha degmooyinka iyo talisada ciidanka booliiska ee Muqdisho ayaa dhawaan ka dhici doona caasimadda Soomaaliya. qorshahan waxa uu bilow u yahay hannaan isku xiran oo toddobaadyada soo socda lagu beddelaya talisada ciidamada booliiska militariga guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. waxaa mas'uuliyiintan la beddelaya boosaskooda la geyn doonaa siyaasiyiin qaarkood qayb ka ah ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. toddobaadkan waxaa la beddelay guddoomiye ku-xigeenadii duqa Muqdisho ee dhinacyada amniga iyo siyaasadda, maaliyadda, howlaha guud iyo xogayihii gobolka Banaadir. waxaana boosaskaas lagu beddelay xubno ka mid ahaa xoogaga wadaniyiinta iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo, waxaana xilalkan loogu magacaabay inay qabtaan shaqooyin dhowr ujeedo leh. waxaana ka mid ah kow, inay ka shaqeeyaan ololaha ama kaambeynka gobolka Banaadir ee dib u doorashada madaxweyne Farmaajo, inay abaabulaan dibadbaxyo lagu dalbanayo in dib loo doorto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana sidaan ogaanay dibadbaxa koowaad uu dhici doonaa bisha Diseembar ee soo socota. in la xadido ololaha musharaxiinta kale, lana ogolaan in boorarka musharaxiinta mucaaradka lagu dhejiyo faras magaalaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee Muqdisho. 4. xagga maaliyadda oo qorshuhu yahay in mishaarka shaqaalaha gobolka Banaadir iyo guud ahaan dakhliga ka soo xarooda Muqdisho lagu maamulo ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. toddobaadyada soo socda waxaa xilalka laga qaadayaa 9 guddoomiye degmo, waxaana ay kala yihiin madaxda degmooyinka Kaaraan, Boondheere, Xamarweyne, Wardhiigle, Waaberi, Shibis, Cabdilcasiis, Dayneele iyo Kaxda. waxaana lagu beddelayaa oo 5 degmo oo muhiima la geynayaa saraakiil ciidamada nabad sugidda iyo kuwo booliis oo laga beddelaya saldhigyada Muqdisho. waxaa sidoo kale la beddelayaa 8 ka mid ah taliyayaasha saldhigyada booliiska ee Muqdisho, waxaana ka mid ah talisyada saldhigyadooda la beddelayo Waaberi, Xamarweyne, Xamarjajab, Shibis, Boondheere iyo 2 degmo aan guddoomiyaashooda la beddelayn oo kala Dharkiinle iyo Wadajir. intaas markay dhacdo waxaa xilka laga qaadayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish, waxaana beddelkiisa loo magacaabayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho siyaasiga lagu magacaabo Cabdulaahi Sheekh Xasan oo xilal ka soo qabtay maamulka Koonfur Galbeed, xisbi siyaasadeedna madax u ahaa. siyaasigan waxa uu mucaarad ku ahaa dowladdii tan ka horeysay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulaahi waxaa la magacaabayaa kadib marka guddoomiyaasha degmooyinka iyo talisyada saldhigyada Muqdisho aan soo sheegnay la beddelo, waana suurtagal in magacaabistiisa ay ka soo hormarto. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ku-xigeenkiisa ayaa 3 maalin ka hor xafiiskiisa kula kulmay Cabdulaahi Sheekh Xasan oo duqa Muqdisho loo magacaabayo, waxaana kulankaas goobjoog ahaa saraakiil ka socota xafiiska madaxweynaha. waxaa duqa cusub loo bandhigay istaraatiijiyadda ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo iyo kaalinta Muqdisho, waxaana uu Cabdulaahi saxiixay qorshahaas isaga oo ballan qaaday inuu ka shaqeynayo hirgelintooda. intaa waxaa dheer in awood dheeri ah la siinayo ku-xigeenada dhowaan la magacaabay ee maaliyadda, amniga iyo siyaasadda, kuwaasoo madaxtooyada toos u hoostagaya. haddaba markay intaas dhacdo waxaa sidoo kale uu qorshuhu yahay in kulanka golaha wasiirada lagu magacaabo taliyayaasha ciidamada booliiska iyo militariga. taliyaha ciidamada booliiska Genaraal Cabdi Xasan Xijaar iyo ku-xigeenadiisa ayaa isbeddel lagu sameynayaa, waxaana xilalkooda loo magacaabayaa saraakiil kale oo hadda ka tirsan booliiska Soomaaliya. dhinaca militariga waxaa Genaraal Odawa Yuusuf Raage loo beddelayaa taliyaha ciidamada lugta. sargaal cusub oo ka socda madaxtooyada kana mid ahaa saraakiisha ciidanka Danab ayaa loo magacaabayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka. warbaahinta Samakulan waxay ogaatay in dhammaan xubnahan cusub ay isugu jiraan xoogaga wadaniyiinta oo hoostaga madaxtooyada, saraakiil ciidan oo ku dhow Villa Soomaaliya iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo.